saaka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed wuxuu shir gudoomiyay shir ballaaran oo ay ku helinayeen gudida gurmadka suuqa waaheen ee uu dhawaan magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo safiirada beesha caalamka u jooga Jamhuuriyadda Soomaaliland kulankaas oo ahaa isxog waraysi iyo halka xaaladdu marayso wasiirka ayaa warbixin ka siiyay muxuu ahaa safiirada beesha caalamka Soomaaliland u jooga halka ay marayso xaaladii iyo gurmadkii iyo dhibaatadii ka dhacday suuqa waaheen qiimeynteedii iyo hawsheedii sidoo kale gudida gurmadka suuqa waaheen ayaa iyana warbixin siiyay waftiga dhinaca kalena waftiga ayaa ka dareen celiyay inay Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland isku barbartaagayaan dhibaatada ku habsatay ganacsatada suuqa waaheen sidoo kalena ay la qaybsanayaan wax kasta oo ay noqoto labada dhinac waxay isla qorfayeen in la sameeyo qiimeyn ballaaran oo muxuu ahaa lagu eegayo qasaarihii meesha ka dhacay tallaabooyinka la qaadayo maxay ahayd arrimahaas oo dhan baa la isla jeexjeexo laga wada hadlay iyadoo waftiguna ay sheegeen in wafti culus oo ka socda midowga Yurub Mareykanka iyo qaramada midoobay ay dalka ku soo wajahan yihiin maalmahan oo iyana u socda muxuu ahaayay inay xaaladda muxuu ahaa eegaan oo inala qiimeeyaan iyo inay iskeen barbartaagaan marka arrimahaas oo dhan baa shirkii saaka laga wada hadlay safiiradana waxay noo muujiyeen sida iyada iyo dalalka ay ka yimaadeen wakiilka yihiinba ay dhibaatada uga xun yihiin sida ay u doonayaan inay dhibaatada ay nala qaybsadaan iskeen barbartaagaan arrimahaas oo dhan baa laga wada hadlay wuxuuna ku soo dhamaaday kulamada baa sii socon doona iyo wufuudda dalka imanayo iyana kulamada dambe la yeelan doono arrimahan la isku qiimeyn doono intaas ku saabsanaa kulankii saaka dhex maray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha gudida gurmadka suuqa waaheen iyo safiirada beesha caalamka sidaas aan lagu soo gabagaboobay